dadka qurbaha ku nool ayaa bisha barakaysan ee Ramadaan waxay caawiyaan dadka danyarta ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay dadku ka heleen kaalmooyinkaasi sadaqada ah. Warbixintan waxaa Baydhabo inooga soo diray wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh. Magaalooyin badan ayaa afurin loo sameeyaa dadka danyarta, halka kuwa kalena loo iibiyo raashin ceeriin ah oo loogu talagalay inay ku soomaan bishan Ramadaan. Hay'adda Somali Community Foundation ayaa tan iyo inta la gudagalay bisha Ramadaan deeq raashin noocyadiisa kala duwan waxay gaarsiisay dad badan oo barakacayaal iyo danyar u badan, kuwaasi oo ku nool gobolada koonfur galbeed Soomaaliya iyo gobollo kale. Xiriiryaha guud ee hay'adda Somali Community Foundation Haji Shamun oo VOA la hadlay ayaa sharaxay deegaanada ay gargaarka gaarsiiyeen iyo dadka ay ugu deeqeen. Deegaanada aan wax gaarsiinay waxaa ka mid ah Jubbaland, Kismaayo, Baraawe, Baydhabo, Marka, Afgooye, Jowhar, Muqdisho, Gaalkacyo, meesha martan barakacayaasha iyo Sanaag Bari, meesha la yiraahdo Wadajir. Dadka aan caawinay waa dadkii loo baahnaa oo danyarta ahaa oo biilna loo soo diraynin, runtii aad iyo aad oo martan u dhiban yihiin, afurkoodii aan haysanin, weliba marta barakacayaal ay ku jiraan, sida martan Baraawe ruuxeeda meelo badan ayaa barakacayaal ka degan yihiin oo xaafad la yiraahdo kaam la yiraahdo ee dalxiiska, iyo sida mar dadka waayeelada, ilmaha oo martan oo agoonta, indhoolayaasha, dhammaan oo dadka markaas oo aan haysanin in oo maaragta meel oo wax ugu imaadaan lahayn, dadkaas dadkii oo ugu darnaa oo martan oo noocii loo baahnaa oo dadkaas ayaana wax siinay. Ma ahan dad oo martan markaas afurkoodii haystaan, annaga wax ma siino. Bishan Ramadaan gudaheeda hay'adda Somali Community Foundation ayaa gaarsiisay dad ganacsiyo yaryar ku leh magaalada Baraawe ee caasimadda koonfur galbeed Soomaaliya dhaqaale ay ku kabaan ganacsigooda. Maanta waxaan soo booqanay ilhaan shacabdi u soo dhiibay $1,000 ah. Maasha Allah, ilhaanaan ku wareejinaa $1,000. haddii alla idmo shacabdi khayr Allah ku siiyo, ajri xasanaad Allah ka siiyo. Agoonta mar walba saad u taakulayso. Meeqa haysataa? $1,000 lacag ma haysataa? Meeqa ciyaala kuu joog? insha Allah Allah ku barakeeyo. shacabdiga ku soo dhiibay inaad ku shaqaysato ayuu ku soo dhiibay, insha Allah inaad ku shaqaysato ku soo dhiibay. waxaad yareyso shacabdina u duceey, Somali Community u duceey insha Allah. Haji Shamun ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadka ganacsiyada yaryar leh ee dhaqaalaha la siiyey loogu talagalay inay kor ugu qaadaan ganacsigooda si ay isku filnaansho u gaaraan. marta ganacsiyo dadka oo ganacsiyo yaryar ay haystaan, miisaska waxay ku gataan ayaa martan runtii walaalkeeni martan Sheekh Cabdi Isaaq oo ku sugan Mareykanka gaar ahaan Atlanta, Georgia, wuxuu ugu deeqay miisaska yaryar oo martan sida martan kuwa martan tabakayooyinka oo yaryar ay wax ku gataan, iyo kuwa qudaarta, iyo kuwa caanaha, iyo kuwa martan masigada ama galeyda ayaa lacago oo yaryar ugu deeqay. oo runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay dadkaas oo martan oo ku talgalay Sheekh Cabdi in ay martan ganacsigoodii kor ugu qaadaan, si oo had iyo jeer martan nolol maalmeedkooda oo martan uga soo saartaan meeshaas, ayagona markaas qofna oo martan 50 iyo 100 aan ka sugaynin xoogoodii hadayba xamaalanayaan in ay ku soo kordhiyaan ganacsado oo martan ganacsigooda sida kor u qaadi lahaayeen. bilaha ay aad sadaqada u baxsadaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka qurbaha ku nool oo caawiya dadka liita ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
xisbiga mucaaradka ee Labour Party ayaa xisbiga talada haya ee dalka Britain kaga guuleysteen kuraasi badan doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay ka qabsoontay dalka Britain. 70% kuraasidii lagu tartamay ayaa xisbiga shaqaalaha lagaga guuleystay, waana guuldaradii ugu weyneed ee soo wajahda tan iyo intii uu xilka xisbigaasi qabtay Sir Keir Starmer.